duqa magaala madaxda Jabuuti Cali Ismaaciil ayaa ka wargelinaya dadweynaha gaar ahaan kuwa goray Camuuda in loo xadeeyay goobo ay ka gori karaan Camuuda. kooxda deegaan ayaa soo bandhigtay heeso cusub oo dhiirigelin iyo baraarujin isugu jiraba oo ku saabsan dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. xagga wararka caalamkana ciidamada dalka Shiinaha ayaa xoojiyay tallaabooyin ay ku badbaadinayaan dadka wali iyagu ka hoos xaniban burburkii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi. ugu yaraan 80 qof ayaa ku qurbaxay in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen laba qarax cusub oo ka dhacay magaalada dalxiiska ee Jaipur ee ku taala dalka Hindiya. intaasi waa qodobadii ku door corona haatan isagii oo dhan warkii dalka. shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee hormoodka ay ka tahay qaramada midoobay ee ka socda maalmahan dambe magaalada madaxda Jabuuti ayaa galay maanta maalintiisii saddexaad. ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Axmed Ould Abdallah ayaa kulamo gooni la yeeshay labada wafdi iyagoo ka socda dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo isbaahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya. waraysiyo gaban oo la yeeshay labada mas'uul iyagoo horkacay wafdiyadaasi waxa ay sheegeen in hadda shirku si wanaagsan u socdo waxaana walaac ay ka muujiyeen xaaladda bid'aatinimo ee ka jirta Soomaaliya oo ay sheegeen in xalka qura uu yahay in la sii wado hadalladaasi. waraysiyadaasi oo dhan daawadayaal waxa aad la socon doontaan wararka telefishinka kadib. rugta ururka aan dawliga ahayn ee Albirri waxa maalintii shalay galkii dambe lagu qabtay munaasabad lagu soo gabagabeeyay aqoon kororsi loo fidinayay in ka badan 15 urur iyagu ka howlgala caasimadda Jabuuti iyo gobolada dalkaba. aqoon kororsigaasi waxa soo qabanqaabiyay ururka Albirri oo la kaashaday ururka aan dawliga ahayn gacanka Carbeed loo yaqaano AGFUN. aqoon kororsigaasi oo socday muddo dhowr maalmood waxa uu ku saleysnaa xoojinta tayada farsamada xagga maareynta qorsheynta lacagaha maalgelinta loo yaqaano microfinance iyo ururada waxaana aqoontooda ka bixinayay khibaro qaran. munaasabadii gabagabada waxa uu joogay mas'uuliyiin sarsare sida xogayaha guud ee ururkaasi Albirri Maxamuud Rooble oo tilmaamay in aqoon kororsigan uu faa'iido weyn ugu fadhiyo ururada. munaasabadaasi waxaa lagu soo gabagabeeyay waraaqada aqoonsiga oo loo qaybiyay ka qaybgalayaasha iyo ka qayb qaatay aqoon kororsigaasi oo muddo dhowr maalmoodba ururkaasi uu soo qabanqaabiyay. ka qaybgalayaashaasina waxa iyagu ka socdaan in ka badan 15 urur iyagu ka howlgala caasimadda Jabuuti iyo gobolada dalka. maalintii shalay galkii dambe ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay aqoon kororsigaasi oo lagu soo gabagabeeyay rugta ururka aan dawliga ahayn ee Albirri ee caasimadda Jabuuti. duqa magaala madaxda Jabuuti Cali Ismaaciil ayaa ka wargelinaya dadweynaha gaar ahaan kuwa iyagu gora Camuuda in loo xadeeyay goobo ay ka gori karaan Camuudaasi. goobahaasi waxa ay kala yihiin goobta Bekanef loo yaqaano ee wadada qaran ee Route Nationale numero 18 degmada Shabeelay dixda weeca BK20 waxaana sidoo kale laga mamnuucay goobaha sida dixda Xumbuli oo kale. waraysi gaaban oo la yeeshay duqa magaala madaxda Jabuuti Cali Ismaaciil Yaabe waxa uu ka wargelinayaa dadweynaha oo uu sheegay in dadweynaha gaar ahaan kuwa iyagu gora Camuuda in loo xadeeyay goobo ay ka gori karaan Camuudaasi. waxaana duqa magaala madaxda Jabuuti Cali Ismaaciil Yaabe uu sheegay in dadkaasi ay mamnuuc ay ka tahay in ay ka goraan Camuuda goobaha sida goobta BK9 ee wadada qaran ee 18 degmada Shabeelay dixda Xumbuli iyo BK20 degmada Nagaad iyo waliba Catar. cidii tixgeliweedaha qaraaradaasina waxa uu duqa magaala madaxda Jabuuti Cali Ismaaciil Yaabe ganaax ayaa dusha laga saari doona waxaana lagu takhsiiri doona 50,000 oo faranka Jabuuti iyo baabuurkiisa laga xareyn doono muddo 7 ciidamada booliska ayaa loo xirsalay arrinkaasi in ay la socdaan ayaa ku soo gabagabay hadalkiisa duqa magaala madaxda Jabuuti Cali Ismaaciil Yaabe. dal iyo dadbax oo dhamaaday hambadaha la daba qabto waxay kamid tahay heesaha cusub ee kooxda deegaan ay soo bandhigtay kuna saabsan dhiirigelinta iyo ku baraarujinta kooxaha iyagu isku haya tala dalka Soomaaliya in marquun heshiis oo dhex maro. hanu dhageysano heesaha kooxda deegaan ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
isbarashada dalkoodii ku gubayo وكنتي بوشيسي وحاسود الجوكي تريدوا هاي لياطي كان دون اسبرشادة دالكودي كوكوبايو وكنتي بوشيسي وحاسود الجوكي تريدوا هاي لياطي horta waxaan ugu dhaliyay waad ogeydeen shirkii carta halkii ay kooxda deegaan ay ka xidigaha kooxda deegaan ay ka galeen maantana waxaan ugu dhaliyay kooxdu iyadu cidna ma dirtay iyada un baastirta maantana maadaama dawladeena ay qaadatay gudashii ay waliba handana daba socotay walaalahay heshiye leedahay annagana dawladda nibadhan buu ka qaataa mugsoonta dalkii martina noo walayahay hadii Jabuuti marti loo yahay dawladdu dhan bay qaadatay shacbiyadu dhan buu qaatay fanaaniintuna dhan bay qaateen marka annaguna dhankii fanaaniintu man ka diyaar galowna dhinaca xafladeen qabanqaabadeeda ayaa gacan ugu siiyay wallahi cidna gacan uguma siinayna annaga un baad gacan isku siinaa annaga un baad hawsha gala cidna nama dirin annaga un baastirna qof de la dire loo yeeray iyo yeedhu dadku ka yahay annagu waa dadka u yeedhayaan ku jirna marka maadaama dadka u yeedhayaan jirna markii baaq uu soo tabadeeyay goor kastaba de madaxweynuhu uu yiri gudasha halka maandhigaynay maanta iyakay u taalaay walaalahay heshiiyeen yiraahdeen annaguna waxaan garanay kooxda deegaan inay kaalinteedii ay daawalba ku lahayd ummadda Soomaaliyeed ee de la iska wala garanayo in iyaduna kaalinteedii ka gasho iyadoo ciidiba dirin ciidina ay mugsoonta galak wada gudoomiyaha kooxda deegaan caws oo waramayay Maxamuud Barre Booq qusulka guud ee jamhuuriyadda Djibouti oo fadhiya magaalada Diradhaba mudane Maxamed Jaamac oo ku hadlay magaciisa iyo magaca beesha reer Djibouti iyagu degan magaalada Diradhaba ee dalka Itoobiya ayaa dambal tacsiya u diray qoysaska iyo qarabadii uu ka baxay marxuum Umar Farax Eltire oo toddobaadkii hore ku geeriyooday magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaana eeba uga baryayaan in Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo samri iimaan oo ka siiyo qoysaska iyo qarabadii uu ka baxay marxuum Umar Farax Eltire inna lillahi وإنا إليه الراجعون. حق وركا عالمكنا ciidamada dalka Shiinaha ayaa xoojiyay tallaabooyinka ay ku badbaadinayaan dadka waliga ku hoos xaniman burburkii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi. ciidanka dalka Shiinaha ku hawlan sidii ay u soo badbaadin lahaayeen dadka wali hada ku hawlan dadka ku xaniban guryaha burburkooga hoostooda iyadoo tan iyo isliintii xilligii uu Shiinaha duufaanku ku dhuftay oo sida xunna u saameeyay ilaa iyo hadda tirada ku meel gaarka ee laga soo saaraya dalka Shiinaha ay 14,000 sare u dhaaftay iyadoo 40,000 oo kalena wali la leeyahay dhakhtarada dalka ayaa buux dhaafay dadku ka bateen iyadoo dhawaantana la leeyahay wali inta ka badan dhaawaca dawladda Shiinuhu waxay ogolaatay in caalamka gargaar ay soo gaarsiiso gees kale dalka Shiinaha oo dhawaanta lagu wado in laga qabto ciyaaraha Olombikada ee caalamiga ayaa midhodho ay u aamuseen qaybaha dabka Olombikada sida dadka ku geeriyooday dhulgariirka madaxweynaha dawladda Mareykanka George Walker Bush iyo oordiisa ayaa maanta gaaray caasimadda Tel Aviv ee dalka Israa'iil waana boqoshadii labaad ee Mr Bush ku tago dhulka Yahuuda mar kale iyo Siraad madaxweynaha Mareykanka George W Bush ayaa gaaray dhulka ay Yahuudu haysato Israa'iil ula magac baxday iyadoo halka laga xusayo sanad guurihii 60aad ee aasaaska Israa'iil waa markii labaad uu madaxweyne Bush uu tago Israa'iil 7 sano oo xilka madaxtinimada dalka Mareykanka hayo si dheeran ayaa Israa'iil loogu soo dhaweeyay Bush isagoo Bush khudbadu halka ka jeediyay ku cadeeyay in inta uu xilka ka tagin dhawaanta uu doonayo in uu arko dawlad Falastiiniyiinta u curata gees kale 3 Falastiiniyiin ah ayaa ay Yahuudu ku dileen marinka Gaza xilli ay Falastiiniyiintu mudaharaadyo ka wadeen xadka daanta galbeed iyadoo ay ka soo horjeedeen 60 jirka ay Yahuudu maamusayso ugu yaraan 80 qof ayaa ku qorbaxay in ka badan 100 qofna way ku dhinteen laba qarax oo isxiga oo ka dhacay magaalada dalxiiska Jaipur loo yaqaan iyadoo ku taala dalka Hindiya wafti ka socda ururka jaamacadda Carabta ayaa iyagu gaaray caasimadda Beirut ee dalka Lebanon wararkaasi isku duban waxaanu la soconaa
ugu yaraan 80 qof ayaa ku qurbaxay in ka badan 100 qofna way ku dhaawacmeen laba qarax oo isxigay oo ka dhacay magaalada dalxiiska ee Jaipur iyadoo ku taala dalka Hindiya ciidamada booliska ee dalkaasi ayaa isku hareerayay magaaladaasi dalxiiska si gacanta ay ku dhigaan dadkii iyagu ka dambeeyay qaraxyadaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waxa uu sheegay in ciidamada boolisku hadda ay ku raad joogaan dadkii iyagu ka dambeeyay falkaasi dalka Spain qaraxa ka dhacay gudaha dalkaasi ayaa ku dhintay qof 4 kalena way ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa dusha durbaba ka saaray qaraxaasi ka dhacay gudaha dalka Spain gooni-goosatada ETA waxaana ay sheegeen inay geestooda ay ku raad joogaan kooxaha iyagu ETA ka tirsan ETA wafdiga ka socda ururka jaamacadda Carabta ayaa gaaray caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan si ay u xaliyaan xiisada dagaal ee ka taagan dalkaasi wafdigaasi waxaa horkacaya ra'iisul wasaaraha dalka Qatar iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Dr. Amir Musa waxaana ka qayb qaadanaya shirkaasi wasiiro ka socda ururkaasi oo kamid yahay madaxa diblomaasiyadda ee Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo gudoomiyaha guddigaasi Mrs. Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay doorashada isreebreebka musharaxnimo ee gobolka Virginia Occidental laga qaban qaybiyay koonfurta galbeed dalka Mareykanka Mrs. Hillary Clinton khudbada gaaban halkaas ay ka jeedisay waxa ay sheegtay in wali hawlo ay harsan yihiin isla markaana la rabo in dadku guud ahaan ka qayb qaataan doorashooyinka isreebreebka ee laga wado gudaha dalka Mareykanka qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay war wixii dalka iyo dadweynaha habeenka soo gaadhay habeenkan caawiga qayb qaatay marwasiirad cawaleed waxaan u mahadnaqayaa farsamo yaqaaninta habeenkan caawin u dadayna xagga sawir qaadayaashii cod qaadayaashii guud ahaan dadka iyagu soo dawrida warka iyo daawadayaashaba meel kasta ay joogaan ay kala socon telefishinka dalka website iyo satellite ka mid ah dib u kulmi doon daawadayaal meel kasta oo joogtaan waxaan iga tagnaa saasiyo awis